gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salmaan Ramaax ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay madaxda kala duwan ee laamaha dowladda. Waxaana kulankaas oo isagu ahaa mid ku qabsoomay hoolka xarunta maamulka gobolka halkaasi ka soo qayb galay barsa ku-xigeenka gobolka, mas'uuliyiinta maamulka degmada, taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Waxaana kulankaas oo isagu ahaa mid isbarasho isla markaana daranaa sidii ay hay'adaha dowladda ay u wada shaqayn lahaayeen ayaa waxaa gudoomiyuhu halkaasi kaga dhawaaqay guddida qabanqaabada xuska 18 May oo ka kooban 12 xubnood. guddida qabanqaabada 18 May taas oo dib u dhaca ay keentay iyadoo maamulkii gobolku isbedelayay. shalay baan xilkii la wareegnay, maantana dhammaan waxaan aragnay madaxdii laamaha dowladda heer gobol heer degmo taayada ah waxaan ku magacaabnay 12 xubnood inay guddida qabanqaabada 18 May إن شاء الله تعالى وحنا كرتيني هنا هوشو سفيان. أنا قدوميها مستر رماح وسيدو كله باق وجري دمان شعبوينها كودغان جودهان بقبل كسناج تاسوق باقينا كقيب قاتان حسك مناسبة درسيدية 18 ماي. دمان دقموي كوكوبين قبلكو كويان صومري وكوانا مريبا وحرتيني يبونيني سيدو كله حفلتها سيدي حصيدة الله حصايو مالنتي وين قرنكا إنه سفيان uga muuqdaan dhammaanba gobolka. taasna waxa inoo raacdaa in dhammaan gobolada dalka ay tartan ku jiraan. waxaan filayaa tiribikan insha Allah taala inagoo xilli dambe bilownay inaynaan haddana kaalin hoos loo geli doonin ee kor leynoo eegi doono insha Allah taala. Cali Aadan Daahir, telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.